لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إن شاء الله بالآيات كسان آخرني يدي عن كبدين كرنبا انت وقتي ونوسع معين تفسير كذا آخرين دونا عشر كيلوات تفسير سورة الكهف كمذا وحنصور بلوني تفسير سورة الكهف أسبوع دويت إنه أسبوع عاسي كهذا اللي هو ربع أما مقدمة كصعب سورة ده يفضل هذا موضوع كهذا ليسو iyo dhowr aayadood tafsiirkooda ayaan usbuucii hore casharkii aan ku joogsanay waxaan ku istaagnay aayadda 8aad oo waxaan ka bilaabaynaa maanta aayadda 9aad am xasibta anna asxaab al-kahfi war-raqiim kaanuu min aayatina cajaba sidaan soo tilmaanay nimankan asxaabul kahfi la yiraahdo waxay ahaayeen sida mufassiriintu fara badan oo ay sheegeen min as-salaf wal khalaf kamida waxay aayeen baa leeyahay wiilal dhalinyaro ah oo kamid ahaa boqoradii Room awlaadoodii iyo dadkii madaxda ahaa ama dadkii magaca lahaa awlaadii dhaleen marka dadkoodu waxay ku sugnaayeen baadi iyo dalaal waxaana hogaamin jiray nin gaal ah oo boqor u ahaa
marka maalin maalmaha kamid ah ayaa iyadoo waqti ciida ay tahay ay soo raaceen muxuu ah dadkooda iyadoo dadku ay isugu imaanayeen ay ku dabaaldegayeen meel magaalada banaankeedii ah halkaasoo ay asnaam ay ku caabudayeen yacni u gowracayeen xoolo nin boqor ah ayaana hogaaminayo Diqyaanus la yiraahdo ninkaasaana gaalnimada ummadda maartay ku hogaaminayay ciddii surtaagta ama diidana dhib u geysanayay markay arkeen waxa meesha ka socda iyo foolxumadooda iyo arrintanu in qof caqli leh ayna u cuntamin ayaa ay ka soocmeen dadkooda gooni bay uga baxeen ayaguna waxa la yiri mid bay u baxeen dad siyaqaanay ma ahayn waxa isu keenay ay isku aqoonsadeen ay isu soo aaneysteen waxa weeyaan iimaanka weyn iyo diinta xaq ah mid baa baxay ku kala baxay ayagii marka waxay arkeen inay isku hadaf yihiin inay isku ujeedo yihiin inay dhammaantoodii doonayaan in ilaahay kaliya la caabudo tiradooda waxaa la sheegaa 7 ay ahaayeen marka waxay markii dambe go'aansadeen inay iskaga cararaan meeshan maxaa yeelay ninkaas daaqiga ah boqorka ah ee aan doonaynin wax amarkiisa khilaafa ama kufriga uu dadku ku wada qofka diida inuu dhibaateynayo markaasay muxuu ahaa ay ka dhaqaaqeen meeshii ay baa la socday baa leeyahay 8 ku ahaa eygooda ay wateen marka qisada marka tii way ku saabsan tahay markay soo baxeen waxay yimaadeen meel kahfi ah saa usbuucii dhaweed aan idin sheegnay kahfigu waa يعني maxaa god ku yaal buur dusheed ayaa la yiraahdaa ama buur ku yaal ayaa la yiraahdaa kahfi oo waasica oo balaaran oo dad badan ay gali karaan haddii uu yar yahay waxaa la yiraahdaa baanini gaar baa la yiraahdaa halkaasay galeen ilaahay subxaanahu wa tacaala awoodiisa ilaahay bay bariyeen inuu ka sharta ninka gaalka ah iyo qoladaasi dhibaysa ama diintoodii ka hortaagan xaq ah inuu ilaahay ka badbaadiyo ilaahay wuxuu ku riday hurdadaasoo la yaab lahayd hurdo aad u yaab badan bahayd 309 sano ayay jiifeen 309 sano kadib ayay hurdadii ka soo tooseen marka qisadii ayaa quraanka marka tafsiil ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo faahfaahinaya waxaan ka bilaabaynaa marka aayadda maanta يعني waxaan ka bilaabaynaa aayadda muxuu ahaa aayadda 9aad am xasibta anna asxaaba alkahfi warraqiimi kaanuu min aayaatina cajaba aayaddaas ayaan ka bilaabaynaa am xasibta anna asxaaba alkahfi warraqiimi kaanuu min aayaatina cajaba aayaddaas oo 9aad ayaan ka bilaabi doonaa hadduu ilaa yiraahdo marka insha Allah يعني آيداس لصبح آيات 9 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إلهي سبحانه وتعالى وحيره أم حسبت موحد ليسي نبي محمد أن أصحاب الكهف كهفي أصحاب تيسا قدكي أصحاب تيسا ذاتكي يعني أن يرضاها wiilashii dhalinyarada ahaa ee ka tagay dadkooda ee diintooda la cararay ee godka galay kuwaas asxaabal kahfi iyo warraqiimi ee looxii lagu qoray magacyadooda kaanu inay ahaayeen min aayaatina aayadaha iyagoo kamid ah cajaban wax la yaab leh oo wax ka yaab badan uusan jirin miyaad mooday ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisii buu la hadlayaa nabi maxamed oo wuxuu leeyahay am xasibta ya muxamed nabi maxamed oo ma waxaad mooday anna asxaaba alkahfi kahfigii ama godkii dhalinyaradii gashay iyo warraqiimi arraqiim waxa weeye looxii magacyadooda lagu qoray waxaa la yidhi ayaga markay godka galayeen
loox bay magacyadoodii iyo taariikhdoodii iyo magaaladay ka yimaadeen iyo hadduu alla kuu roon yahay muxuu ahaa magaalada yani magaaladaas wixii ka jiray taariikhdii bay ku qoreen qof walbaba qabiilkiisa iyo waalidkiisa iyo waxyaaba noocaas oo kale marka waxay dhigeen kahfigii albaabkii oo laga soo galayay godka ayay dhigeen kadib markii la helay waa la yaabay taariikhdaas waqtiga ay noolaayeen marka ilaahay wuxuu leeyahay ma waxaad u malaynaysaa anna asxaaba alkahfi kahfigii asxaabtiisa godkii asxaabtiisa iyo warraqiimi iyo looxii magacyadoodii lagu qoray kaanuu inay ahaayeen min aayaatina aayadaha iyaga iyagoo ka mid a yaa cajaban shay lala yaabo oo wax ka yaab badan uusan jirin waxaa weeyaan bal huwa hunaaka maa huwa acjabu min dalika wax badan oo aayaadka iyaga ka mid a oo ka daran oo ka yaab badan baa jira buu ilaahi subxaanahu wa tacaala yacni ilaahay awoodihiisa waxyaabaha tusiya ee fara badan ee adduunkan daadsan wax la koobi kara ma aha marka taasi waa aaya min aayaati illaahi alcudmaa iyo yacni aayad ama calaamad tusaysa awoodda alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo tilmaamayo dadkaasi 300 iyo intaasoo sano ku jiray yacni god oo ma aragtay inay dhinteen loo qaatay inuu alle subxaanahu wa tacaala uu soo nooleeyey oo ayagoo nool inkastoo markii horeba ayna dhimanin yacni hurdada ayaa waxay tahay geeri yar hurdada ayaa waxay tahay geeri yar ama geeridii weyneed inayna dhimanin marka inay 309 sano kadib ayagoo socdo ay yimaadaan waa shay la yaab leh oo aayadaha ilaahay waaweyn ka mid ah laakiin ma aha aayadaha ugu waaweyn balse aayaad ka waaweyn baa jira ayuu alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay ma aragtay sidaasaa ilaahi subxaanahu wa tacaala uu nabigiisa uu ku yiri wey am xasibta ana asxaaba alkaafi waalraqiimi kaanuu min aayaatina cajaba inay yihiin yacni laysa min amruhum cajiiban fii qudratina yacni awooddayada iyo yani khalqiga waxaan abuurayno marka la garab dhigo arrintaasi tan ugu weyn ma aha wax lala yaabana ma aha balse wax ka yaab badan oo aad iyo aad oo aayaadka ilaahi subxana wa tacaala ka mid ayaa jira taasina waxay ku tusaysaa awoodda alle subxana wa tacaala id awal fityatu yacni id waqti awaa ay u dulmeen alfityatu kuwii dhallinyarada ah ay u dulmeen oo ay galeen ila alkahfi godkii ku yaalay jabalka kahfiga oo faqaaluu ay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga iyagow aatinaa nasii min ladunka adiga xaggaaga raxmatan naxariis naga sii ilaahayow xaggaaga naxariis naga sii bay yidhaahdeen oo wahayi noo diyaari lanaa annaga min amrinaa amarkaaga xaggiisa rashadan yacni sawaab iyo toosnaan yacni ilaahayow nagu hagaaji yacni caaqibadeennina mid toosan ilaahayow ka dhig saasay yidhaahdeen marka dadkan dhallinyarada oo ilaahay subxaana wa tacaala uu hanuuniyey waxaa kaaga muuqata laba shay bay isku darsadeen inay asbaabtii ay ku badbaadi lahaayeenna ay qaateen oo ay ka carareen magaaladii gaalka uu joogay ama ninkaasi waxyeelayn lahaa iyo inay ka galeen meel ay ku qarsoomi karaan oo ay ku dhuuman karaan markaa kadibba ilaahay haddana baryayaan markaad ilaahay tala saaranayso waxaa la rabaa inaad adigana wixii asbaabtii ah inaad la timaado kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala aad tala saarato icqalha yani uma tawakkal cala allah yani awrkaaga dabro kadibna ilaahay subxaana wa tacaala tala saaro adiga wixii lagaa rabay dhankaaga la imow oo howsha kadibna ilaahay subxaana wa tacaala tala saaro marka waxay ku tusaysaa in qofka haddii uu rabo inuu cilmi barto inuusan dhihin keliya yani hadduu ilaahay ka baryayo cilmi waa inuu u dhaqaaqaa oo cilmiga barashadiisa ilaahayna ka baryaa inuu ku guulayo oo garab qabto laakiin inuu gurigiisa iska fadhiyo waxna uusan daalacan meesha wax lagu bartana uusan imaanin haddana uu moodo inuu sidaa keliya cilmigii uu maaragtay yani ku kasban karo waxaad arkaysaa inay khilaafsan tahay sunnada yani maaragtay ilaahay subxana wa tacaala marka waxayna tusaysaa
markii ay galeen yani godkii ilaahay bay baryeen oo waxay yiraahdeen id waqti awal fityatu fityadi alfitya yani waxa weeyaan jamcu fata wala jamcu qilla lirada yani fitya wa jamac oo yani fata wa qofka dhalinyarada ah ma garatay fityana ya jamcoodi way kooxdii dhalinyarada ahayd ee todobada qof ahayd markay u dulmeen oo galeen ila al-kahfi godkii yani ay galeen oo faqaalu ay yiraahdeen rabbana ya rabbana rabbiga yagow aatina nasi min ladunka adiga xaggaaga raxmatan naxariis naga sii oo noo naxariiso oo na astur oo qoladeennii naga astur wahayi ilaahayow noo diyaari oo noo qadar lana annaga min amrina amarkeena kana iyo diintan aan ku sugannahay rashadan ilaahu toosnaan maaragtay noogu diyaari ilaahu na toosi ilaahu caaqibadeeni hanuun ka yeel saas oo kale yani sida xadiis ku suganba wamaa qadayta lana min qadaa'in fajcal caaqibatahu rashada sidaas buu maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey xadiis imaam axmed musnadkiisa ku soo saaray ilaahay waxaad noo xukunto oo xukun ah ilaahayow caaqibadiisa sawaab nooga dhig mid toosan nooga dhig noo toosi sidaa wey maartay sawaab iyo toosnaan ilaahayow nawaafaji bay yiraahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fadarabnaa calaa aadanihim fadarabnaa waxaan yeelnay calaa aadaanihim dhegahooda korkoodii waxaan yeelnay marka waxaa meesha u qadaran xijaaban yamnacuhum can ilaswaati waalxarakaat yacni xijaab ka celiya inay cod maqlaan ama dhaqdhaqaaq maqlaan baa dhegahoodii la yeelay dhegahoodii baa la daboolay hurdana waa lagu riday haa filkahfi godkii dhexdiisa siniina sanooyin cadadan oo tiro leh sanooyin la tiriyo waa 313 sida inoo imaan doonta walabithuu fii kahfihim 300 siniina wasdaaduu 9 yani marka ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay dhegahoodiina waxaan yeelnay xijaab looga daboolayo wax cod ah hurdada toosiya iyo wax xaraka oo ay dareemaan oo hurdadoodii ka qasa waa laga daboolay fil kahfi godkii dhexdiisa yani ay alqayna calayhim an-nawma hurdana waa lagu riday xataa dakhaluu ila al-kahfi fanaamuu siniina kathiira sanooyin fara badan bay hurdeen uma dabadeed ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi bacahnaa waa soo saarnay hum asxaabulkahfigii waan soo saarnay hurdadoodii baan ka soo saarnay waa la soo toosiyey ilaahay baa subxaana wa tacaala maalin maalmaha ka mid ah qadaray inay soo wada toosaan markay soo tooseen ayay yaabeen waxay yidhaahdeen war goormaan halkaan nimid ha ayagii baa iskhilaafay markaasaa inteen ku jirnay godkan qaar waxay yidhaahdeen maalin baan ku jirnay qaarna waxay yidhaahdeen bacda yowmin maalin barkeedii baan ku jirnay intaan huridnay waa maalin barkeed ama waa maalin sababtuna waxay ahayd baa la yidhahdaa waxay godka soo galeen subax markii hurdada laga soo toosiyeyna galab qorax dhaca bay ahayd marka yacni weli aan qoraxda dhicin marka kuwa waxay yidhaahdeen maalin barkeed baan joognay laakiin markay arkeen qoraxdii markay soo baxeen oo arkeen inayna weli dhicin oo ay dhici rabto waxay yidhahdeen maalin dhan baan joognay subax baan soo galnay haddana waa taas qoraxdii dhici rabto sidaasay yidhaahdeen saasay isugu khilaafeen laba kooxood bay noqdeen saas oo kale marka yacni ilaahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay uma bacahnaahum waa soo saarnay yacni marka la soo saaray oo ayaga hurdadii laga soo toosiyey linaclama ilaahi wuxuu yidhi inaan ogaano ma garatay in loo muujiyo dadka ayul xisbayni labada kooxood koodeeba axsaa koobid badan limaa labithuu intay nagaadeen oo muddo ah oy godka ku nagaadeen amadan xagga yani xagga ma aragtay yani muxuu ahaa waqtiga ay nagaadeen amadan ay gaayatan yani fa ina alamad algaaya saas oo kale
waqtigii ay nagaadeen ama waqtigii intuu la ekaa labada kooxood ee murmay toodii ku saxsan bal inaan muujino ayaan u soo saarnay buu Allah subhanahu wa ta'ala marka ayul xisbaynidaas laba mufassiriinta laba tafsiir bay ku fasiraan ayul xisbayni labada kooxood midoodeeba axsaa koobtay waxaa la yidhi mid waa ayaga midna waa dadkii u yimid oo magaalada marka dambe yani magaaladiibaa waxaa laga ka imaan doona koox ka imaan doonta sida ay u dhacdayna waxay ahayd markay soo tooseen way murmeen waxaa la yidhi goor imisaan joognay maalin barkeed markii warkii laisku celceliyaa la yidhi waxaa dan inooma ahee waan gaajaysannahaye naf baan nahaye cunto noo doona cuntaha naloo raadiyo lacag ay haayeen oo lacagtii 309 sano ka hor la isticmaali jiray oo boqorkii gaalka ahaa waqtigii uu noolaa lacag fidda ah oo ma aragtay ayaa waxaa loo dhiibay midkood oo lagu yiri telefoonada la damay barakallahu fiik lagu yiri orodoo magaaladii tag cunto inoo soo iibi cunto xalaala oo ma aragtay wanaagsan noogu soo iibi is ilaalina markaad magaalada galaysa yaan lagu arkin oo yani adigoo yaan lagu garanin haddii kale dhib baa inoo imaan kara qoladii waana soo weerari karaan waxay u haystaan weli inuu boqorkii nool yahay in ma aragtay weli iyagii la baadigoobayo adduunka inuu adduunkii ahayn ma oga marka ninkii la soo diray ayaa magaaladii yimid magaaladii markuu yimid magaaladii oo damcay makhaayidii cuntada ka iibin lahaa markuu u yimid lacagtii u dhiibay ayay la yaabeen oo dadkii baa laisugu yeeray oo la yidhi bal arka lacagtan warsee wax u jiraan markaasaa la yaabay war xaggeed ka timaadeen markaasaa boqor muslima ilmaha hooska nalaga aamusiy muxuu ahaa waxaa la yidhi marka nin muqro muslim baa xukumaya markaa magaaladoodii iyo waddankoodii marka waa loo warramay arrintii baa loo sheegay ninkii waxaa soo raacay lacagta watay ee cuntada usoo iibinaya qolo kalaa soo raacday qoladii baa meeshii timid oo la yaabtay yani marka arrintaasay marka qisadu ay halkaas maartay qoladana yani muxuu ahaa asxaabulkaafigu waxay ahaayeen yani qoom ka mid ah nabiyullaahi ciisa waqtigiisii يعني وقتي وجري يعني دينتي نصارى انت دينتي النبي محمد عليه الصلاه والسلام ان ايمان ايام عرفتي يعني دينتي مسلمين تي ددكي دينتي النبي محمد دينتي النبي عيسى راعسنا بي احيان قولداسي marka ilaahay wuxuu yiri thumma ba'athnahu ma sabihni lina'lama ay alhizbayn inaanu yani muujino aan ogaano oo dadka aan muujino ay alhizbayn labada kooxood mideedaba ahsa koobid badan lima labithu muddadii ay ku nagaadeen amadan xagga tirada iyo gaayada iyo cadadka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri nahnu annaga naqussu kaaga warramayno kaaga qisoonayna calayka adiga korkaaga nabi maxamedo naba'ahum warkooda annaga kaaga qisoonayno kaaga warramayna buu yiri bil haqqi si xaqa kaaga warramayno maxay ahayd qisadu maxay ahayd marka innahum ayagu kooxdaasi ka tagtay dadkoodii ka dhaxbaxay fityatun dhalinyaro ahaayeen fityadaasoo aamanuu rumeeyey ilaahi subxaanahu wa tacaala بربهم ربي قود الرومي وزدناهم أننا أن أكرني بور الله سبحانه وتعالى هدى هنون أن أكرني لأن يري أحيان أو إله سبحانه وتعالى وهنوني بأحيان أو خيرك وافجي بأحيان قفك لأن انت ير مركو الله سبحانه وتعالى وهنوني أو قف ضاعد إلهي كنت أقل وياهي إلهي واجع ليه محايا ولا ليال وقتي قبل يرني ماذا iyo fatrada qofka uu yar yahay oo shaabka yahay xoog leeyahay waxa ku furan fitanti adduunka oo dhan shahawaad iyo shubahaad iyo waxyaabo mesela dhalinyaradii qalloociya oo dhan baa u furan caalamka hadda aan joognana lamaba sii jiraba yani waa ka sii xaq jira markii la fiiriyo waqtiyadii hore marka
dhalinyaro waqtigan joogto oo kale ama waqti walbaba joogto haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo hanuuniyo waa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay wey waa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jeclaaday wey waa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag la doonay wey marka dhalinyaray ahaayeen buu ilaahay subxaanahu wa tacaala oo yacni rabbigooday rumeeyeen towxiidkii bay garteen qoomkooda inay khaldan yihiin bay garteen ilaahay keliya in la caabudayay garteen wazidnaahum waan u kordhinay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala hudan hanuun baan u kordhinay yacni iimaankoodiina iimaan baan ugu darnay waan hanuuninay waddada toosan baan ku hanuuninay aayaddaas yani wazidnaahum hudan yacni waxaa laga qaadanayaa iimaanku inuu ziyaado dadkuna iimaanku inay ku kala duwan yihiin oo ay ku kala sarreeyaan sidaa darteed imaam bukhaari iyo kayrkii waxay leeyihiin aayadda waxaa laga qaadanayaa iimaanka inuu kordho ama uu nuqsaamo inay dadkuna ku kala sarreeyaan oo iimaankoodu uusan isku mid ahayn oo qofna iimaankiisu uu xoog badan yahay kuna iimaankiisu uu liito midna iimaan la-aan inuu yahay suuragala walciyaadu billah marka wazidnaahum hudan hanuun baan u kordhinay buu ilaah subxaana wa tacaala waaladiina ihtadow zaadahum hudaa buu alla subxana wa tacala u leeyahy kuwa hanuunay ee waddada khayrkaa qabsaday ilaahay wuxuu leey annagana hanuun buu ilaahayna u ziyaadiyey fa ama aladiina aamanuu fazaadathum iimaanan wahum yastabshiruun kuwa ilaahay rumeeyey ee diinkiisa ku dhaqmay ilaahay iimaan buu u kordhiyey yacni waa kaa yacni liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun aayaadkaasoo dhan waxay tilmaamayaan in iimaanka qofka uu kordho iimaankiisana uu nuqsaamo marka waxaa la rabaa sidaad iimaankaaga u kordhin lahayd inaad ku dadaasho iimaanka muxuu ku kordhaa wuxuu ku kordhaa daacada ilaahay cilmiga barashadiisa khayrka yacni muxuu aha samayntiisa ahlu khayrka la joogistooda culimada iyo dadka saalixiinta oo lacag fariisto wax laga dhagaysto iimaanka ku kordhaa wuxuuna ku nuqsaama ama ku baabaa sharta heesaha muxuu aha diin la-aanta macaasida yacni dadka oo ahlu sharka oo lala saaxiibo waxyaabahaas o dhan ba ku nuqsaamaa marka iimaankaaga inaad ilaashato ayaa lagama maarmaan ah oo aada is ogaato saasoo kale walidaalika waxaan la yaabay nin maalin aan kulannay dadku wuxuu weydiiyaa ma aragtay kayfa aliimaan kayfa iimaanuka hadal saasoo kale ah ha iimaankaaga ka waran yacni diintaada yacni qasadkiisu isaga waxa weeye meesha ay dadku ay yidhaahdaan masalan caafimaadka ka waran caafimaadka ka waran yidhaahdaan saasoo kale ayaa isaga wuxuu leeyahay bal ka waran xaalkaaga diinta iimaankaaga ka waran haddii uu u baahan yahay in la hagaajiyo oo la islaaxiyo haddi waa inaad hagaajisaa haddii uu ku fiican yahay ilaahay u mahadisaa ood siyaadsataa marka waxaad arkaysaa inuu hadalkaas runtii hadal in laisweydiiyo mudan inuu yahay oo maaragtay qofka la yidhaahdo iska warranoo bal ka waran diintaada war iimaankaaga daaca yacni saasoo kale iyadoo ujeeddadu ay tahay in lagu guubaabiyo khayrka ama loo sheego haddii uu gaabinayo inay arrintaasi khatar ku tahay naftiisa saasoo kale innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa kuwa dhalinyaro ilaahay rumeeyey oo hanuun aan u siyaadinay bay ahaayeen buu alle subxana wa tacaala qofka dhalinyarada ah ee daacada ilaahay ku sugan waa ilaahay waa jecel yahay baanu niri nabigana wuxuu noo tilmaamay 7 kooxood ee ilaahay harkiisa la harayn doono maalinta qiyaamo maalin aan har jirin ma garatay ilaa harkaas mooyaane waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadatillah qof dhalinyaro ah rag iyo dumar midkuu doono ha noqdee ku barbaaray daacada ilaahay jacaylka diinta islaamnimada xubbiga qur-aanka diinta wahaakada marka ilaahay subxaana wa tacaala dhallinyaradeenna ha hanuuniyo oo ku hagaajiyo diinta iyo iimaanka ilaahay idinkiisa warabatnaa calaa quluubihim ilaahay wuxuu yihi warabatnaa waanu xirnay calaa quluubihim quluubtoodii iimaankaan ku xirnay buu yidhi ilaahi subxana wa tacaala iimaankii baan qalbigoodii ku sugnay oon ku xirnay buu yidhi
وربطنا على قلوبهم قلوب توذي أيان كسقنا إيمانك أن كحرني إذ وقت أي قاموا استاجين إذ وقت قاموا أي استاجين يعني بقر كي يسهر تاجين أي الشيء أيان حقي وفقالوا أي راذين ربنا رب جينا رب السماوات سماوات كرب قدوي والأرض للك رب جوي سيدا سانكو شيغينا ربنا رب السماوات والأرض مركزي لين ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو أنه بري مين ولجين من دونه الله سكديس إلها إله ولجين بري مين كلا وحكلوا العابده بري مينو لقد حقيقه قلنا وحن نري إذا عبدنا من دونه إلها حدي إلهي سكديس أن إله كلا عابدنا وحن نري وأنكو هذا اللي شططا حد قذب بيرادا مركا بقر كيما يسهر تاجين وأي أشيغ يروحي ليهين ما أركتي أنه رب جان الرب جابا والله أصنام عابدنا بقرده ما عابدنا إلهي بان عابدنا بيرادين ساسي توحيد مارتي ولبا توحيد الربوبية هي توحيد الألوهية أي اسكو دارين ووحي ليهن ربنا رب السماوات والأرض ربيجين وسماوات كربيجي إيو أرلض ربيجي وي إيو رب الكون كله يكون كانوا ربيجي وي إيو واحد لحديثه هدو سيدا ياهي إلهي وحمدن ياهي إلا عابده كاسون وتوحيد الألوهية توحيد هي الألوهية إلا أقادوا أدون كان إنه ربي ليهي أبوري مامولا يعني إساقوا أي هوسي مادان كل جيس أدون كان إلهي وياهي مثل كتصرفه وحال إلى توحيد الربوبية لرضا كل جيس إلا أقادوا كما في توحيد كقفك وعلى الرواء إن الله سيدا سوحو مامولا أدون كلا أديك كله يعني أمور تردن إساق اللو عليه إن كليجي لعابده أو كليجي لو خالص يلو عبادته وسيدا سألقوا بدبادا أما هذا تراده صمد إلهي با أبوري وأوغاي لولك إلهي با أبوري وأوغاي أني الله يا أبوري وأوغاي إلهي با مارتي وحول بابا أبوري وأوغاي تاسو توحيد ما كاس قالوا بوي تراده قالوا با أنت وأوغيين لكن وحال لقواي إني إلهي كليجي عابدان إلهي وحوير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله هداد ويديس السماء أرلض يا أبوري الله أبوري بأورنايا وقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا نولا وأنا مشركين بآية إلهي با أبوري كليا إن أدون كان إستقام معمولا إن لأقاد كليا كما في التوحيد وإن كليا لعابدا وعبادة الله خالص يلا برك أيق وحي رادن ربي جين رب السماوات والأرض وي لن ندعو من دونه ولجين بري مينو عابد مينو سكديس إلها إله كلا وكلجي من عابدنا ونوه سمينا إلها لقد حقيقه قلنا وحن إذن حدي أن عابدنا إلهي سكديس وحكى لدن عابدنا شططا يعني حد قدم أيان لن مدوي وأنكو حضرني ساس با مركاسي أي رادون وحيلين ويلشي من يرضها هؤلاء كوا كان قومنا يعني وقلد يدوي اتخذوا ويشن كوا كان أطول كنيا اتخذوا وحيشن من دونه اللي وينسو كذيس آلهة الإلهية يشن لولا يأتون ميلي ماذان عليهم على عبادتهم لهذه الآلهة عبادته عابد أيان إلهية باطلك بسلطان ميلي ماذان برهان يحجو يعدين ميلي ماذان وبين العد حدين لا إيمان كريم هؤلاء وحي عابد أيان إلهية باطل إنيين فمن كما أظلم كقردرنا بدن ممن قف افترى أبورتي على الله إلهي كركي كذبا بينكو أبورتي قفك إلهي كبين أبورتي قف كاسي قف يعني كظلم بدن مجره أي رادن مركو حيلين قولوا النان أو تلك النع هؤلاء كون قومنا قوم كنيا
اتخذوا وحيشا من دونه إلهي سكديس آلهة إلهي يشا لولا يأتون ميلي ماذان عليهم يعني وحي عابدا يعني ميولي ماذان كركيسا بسلطان ميولي ماذان حجة ميولي ماذان دليل ميولي ماذان تسيس وحي شيغيان إني صحتهي مجري وح صح أي عابدان ماشي ميالان لقد قلنا فمن أظلم بسلطان حجة بين العدل فمن أظلم يا كظلم بظن ممن قف افترى أبورتي على الله كذبا إلهي قفك بينكو أبورتي إلهي با قرب لقيه الله عابدي أما إلهي تذكر إلهي أولاد بولي هيري أما إلهي ما أرتوحه يعني بينا إلهي أتيري يا كظلم بظن مجروا ويغد كظلم بظن وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله وإذ اعتزلتموهم واذكر حس إذ وقتي يعني وإذ اعتزلتموهم وقتي كفقاتين لأن يردي بالة المامية وإذ اعتزلتموهم مركي كدح بحذين وتكسوا عنتين تلكينا قال لماذا درتين إيه وما وحي أتكتكتين وتكفقاتين يعبدون يعابدين إلا الله مويانه وأتوقع ذن إلهي كليا إن عابدان ساسوك الأطفال ذن وتسقط دقاق ذن جركيني حتى أتكلا نحب ذن فأووا الظلمة إلى الكهف أيجي بركاسي إسليهين ورصبح قال قدكا وحسليه قاركود بقارك كلين فأووا الظلمة قال إلى الكهف قدكا قال حقي سأظلمة قال ينشر واو فافنيا لكم إذنك ربكم ربجين من رحمته نحرستي حق يذب واحد إذن كفافنيا يعني نحرستي سبو إذن كدبولا يا إلهي سبحانه وتعالى أي يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم رحمة إذن كقرية وإذن كأستر قومكين إذن كأستر أي الله سبحانه وتعالى إذن كأستر إياه ساس أي إرادة ويهيئ إلهي وديارنا يا لكم إذنك من أمركم أرنكينا أذنك أتكسوانتهين مرفقا أي أمرا ترتفقون به يعني واحد قوضتان مرفقا قوت واحد قوضتان إيو ما أردتين وإلهي سبحانه وتعالى وإذن ديارنا يا يعني هكبقنا واحد قنتان إيو واحد عبتان إيو ميلا تكون ولاتان إنا دويسان حداد بحدين إلهي درتي أدو بحدين ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أي أمرا ترتفقون به من الطعام والشراب وحي لمذا واحد قوضتان وأد ما أردتين أنت أدو بحنتين آيات هلي ساوي مركب واحد أركيسا إنه إلهي سبحانه وتعالى وآمي يالي وماشود لغو آمي يالي ساسو كلام مركا قولدي مركا عدو قودي أهد ولغا إن التري وجي ما أركي كريم أود أمهل إنه يعني أوغادا ماشي كجيران سيدا إلهي سبحانه وتعالى قفك مغان قلبا إلهي سبحانه وتعالى عدو يسوغا إلاليه تاوى حالمي ذا مركي النبي عليه الصلاة والسلام وهي جرودي ومدينة وهي جرودي سقي أبو بكر رضي الله عنه بمركة إسراعين أي نبي عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر وحي قالين قد لي راضه غار الثور بي قالين مركة هالكاس مركة راد كود اللي سوق قاضي أو أي لدول يمد أو قولدي دوني سعادو قد أي دول تاقيهين أي إلهي إنها كقاضي ويوحب أركواين أبو بكر بايري يعني يا رسول الله متكون يعني عقيس هوستو هدو صوفيريو إنديس هوستو صوفوريو وان أركي العابويري مركز النبي وحكيري يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما محي كولتها يا أبو بكر لوقفوا كيس الدحي إلهي وياهي لوقفوا إلهي ولجروا يا كقولي سنكرة قفك قولي سنكرة تمجروا كوح والله إلهي ولجرنا عد كقولي سنكرة تمجروا إلهي سبحانه وتعالى حلي وإن جندنا لهم الغالبون أذكرتني أيها أكو الريني
لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز مرك إلهي سبحانه وتعالى السجا إيه أنت راعد أيوم بقولي سنة يمر والبابا مركا واتي مركز آياته في سورة التوبة يسود دقيقة مركز أبو بكر إيه النبي عليه الصلاة والسلام كتب تلمامي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم مركا قصة غار كاس وحد مودائني يعني اللياب اللي لمضبا يعني وحيابا قاركون اسكشف بها سيدو إلهي أوليديس أحفظيه الله سبحانه وتعالى وترى الشمس إلهي وحوري وترى وأركيس أيها المخاطب أكاغا للحظ ليو هدي أرجوغي لهد ماشا وترى وأركيس الشمس قرحدي إذا طلعت مركا أي صوت للطو تزاوروا عن كهفهم تزاوروا إني كل حنيس عن كهفهم قد كذا ذات اليمين حق مدي أقل حنيسو يعني معناها وعوي قدك أنت يكون جيرين هرت هردا لوردي ويساحذان مركا يساحذان قرح ذا مركا يصاب بعضه إلا قدك أفكيس وافرية قرح ذا هدي كل عضو يجبت قرح ذا يجبته حلقيا وين صوت توصل إلهي مركا قدري قرح ذا مركا يصاب بعضه حق مديك بكاميرا يسا أو أيجا ما بعرك يا قرح مركا يدعي سنة حق بدح ذا بكاميرا تا ومركا أساس وكلا مركا قرح كليل كذبة أركي مايان تادي لباد مر والبابا ويسرق رجيان ويسرق رجيان ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال سببت وحوي هديك على هدي نرع كلي أوجيفان عيدي باعنيس ولذلك قفك مركي قبرك الله ديقو أو يعني أيام كلية كدب الله صلاته معلومة كدب وهذا الكيس يسقون خلاص أو أن قفك قروح بدنا أو سداها أو عين كاسا أو إبرة قلفوف كلية صهرين محايلي يعني لكن إلهي وحوقه تلقى قاب إلي إسروغان مركي لنا عن مدج حوقات جوغا لنا كلا دم إسروغان مركي عيدي هدي أي كداهان أي عوني لحد مركاسي مدى عيسو أو ما عنيسو إلهي بانا وطلع قال سيداس مركي إلهي وحوليه هاي وترى وتركيسا الشمس قرح دي وتركيسا إذا طلعت مركا أي صوب بعضه تزاوروا يتزاوروا لا بقي روي إذا طلعت تزاوروا سيداس صحة آخرية حفص وقراءة هذا آخرين تزاور زايد الشدنا قراء كالآخرسة إذا طلعت تزاور من الإزورار إذا طلعت هذه صوبح قراء دي تزاوروا إني اللي حنيس أي تميلوا عن كهفهم قد كود ذات اليمين حق من يقول حنيس وإذا غربت هذه دعي سنة قراء دي تقرضهم إذن إني كاللي حنيس تقرضهم لفتدوا واللي كرا إني كاللي حنيس ذات الشمال معركتي يعني إني كجود بيسو لنك معركتي برح إني وجود بيسو وقال حنيس وهم والحال هم أصحاب الكهف في فجوة أي كسويهن فجوة يعني جد أو منه من الكهف كمذا يعني فجوة ميل واسعة فجوة يعني أو جد كمذا أي كسويهن ذلك أرنكن نوعا وكلا ولا تلمامي من آيات الله وآيات كواوين إلهي سبحانه وتعالى وحلقوا قاطو وددكو أي وحكو فهمان ويكو قادان أود إلهي وين كذا من يهدي الله قفكو إلهي هنونيو فهو كاسي أيا المهتد متهنونيا قفكو إلهي هنونيا متهنونيا ومن يضلل قفكو إلهي بادينا فلن تجد وليا أهل ميسد له إساقا وليا ولي أهل ميسد وليا سو مرشدا هنونيا يعني قف هنونين كرا
qof alla u baadiyay ma jiro marka hanuun yaa laga dalbadaa ilaahay baa laga dalbadaa huwa alhaadi ila siraati mustaqiim marka ihdina siraata almustaqiim maalin walbaba suurat alfaatixa intaas soo jeer baad akhrisaa ilaahu wadada toosan igu hanuuni liannahu huwa alladii yahdi annaas ila ariiqi almustaqiim waleeda hidaayat altawfiiq qofka in la waafajiyo khayrka oo diinta qalbigiisa lagu soo doo ilaahay baa leh qof kaloo samayn kara ma jiro haddii ay dad kale leeyihiin nabi maxamed baa lahaan lahaa nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam yacni adeerkiisa oo ma aragtay yacni abu aalib markii uu isku dayey inuu hanuuniyo oo khayrka u sheego oo uu ma aragtay yacni uu kari waayey ilaahay wuxuu yidhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allah yahdi man yashaa qofkuna ilaahay hanuun ugu talagelin adiga ma hanuunin karto sidaasaa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam walaakina allaha yahdi man yashaa إن شاء الله درس كلام لذي مركز سوق بجبيننا آية أما هل آية ما قدر دونا وتحسبهم وحد لينيسا أيقاظا إني سوج جيدان هدات فيرس وهم والحال هم أيقون رقود أي الوردان ونقلبهم ونرقرقينا ذات اليمين حق مذك لنك مذك وذات الشمال لنك مذك وكلبهم أيقودين باسط ومتفذي ذراعيه للمضيسة بالوسيد البابك أما بنانك كافقة لو اطلعت حداد أركي لهي وطالع لهي عليهم أيقا لو الليت وجيدين لهي لو الليت وجيسن لهي منهم أيقا فرارا أذيقوا عرري ولا ملئت ولقاد بوحين لها منهم أيقا حق ودين رعبا أرقق حبا لقاد بوحين لها يعني معناها قفكي اسكد ينو أركو يعني مركز أوسو استاكتو هدي وعيد على عرقته إن الله هذا إنه فريه بعد مدة يسوي جيدان مركز منظر يهيبت إلهي وحوسي يقفك إنه أقدم عبه وكسو عرره وكأرجع جحر إن شاء الله عيدا سنكود دونا أسبوع ذنبه عيد سديد تمنات ينكب الله بدونا إن شاء الله مركز أنتي عن 10 كاس وقتي كلام كجارينه هالكاس يكون استعجلنا هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.